dadaalka ayaa guusha keena. waxa aysan dad fara badani ogeyn ama aysan muhiimad weyn aysan siinin layskuna dhaafay waa dadaalka. haa, waa dadaalka iyo kulcelinta faraha badan, waana sirta qof walba wax ku guulaystay uu sameeyey. waxaana xaqiiqo ah in wax kastoo aad ku dadaashaa aad gaarayso. soomaaliduna waxay tidhaahdaa dadaalaa wuu gaaraa. sidoo kale taa cagsigeeda in waxaadan in badan ku dadaalin aadan ka soo hooyin doonin guul weyn. xitaa waxaasi hadday yihiin waxaad aqoon hore u lahayd, waxaa kaaga dhow kan hadda ku cusub balse kaa dadaal badani inuu ku guulaysto. nin ayaa hadda ka hor soo iibsaday fardaha tartanka orodka lagu galo, kadibna wuxuu ku xareeyey beer uu lahaa, wuxuuna fardihii ku duldhejiyey calaamad weyn oo ay ku qoran tahay faraska adduunka ugu dheereeya. milkiilaha faraskani ma uusan orosjiin mana uusan tababarin faraskii. kadib ayuu maalin ku sii dhexdaayey fardihii kale ee tartamayey, wuxuuna noqday faraskii kii ugu dembeeyey fardihii orotamayey oo idil. milkiilaha islamarkiiba faraskii ayuu ka qaaday calaamaddii ku dhegsanayd, wuxuuna ku dhejiyey calaamad kale oo ay ku qoran tahay faraska uu adduunku ka dheereeyey. waxqabad la'aan, dadaal la'aan iyo ficil la'aan dadku guuldaro ayay kala kulmaan, kadibna nasiibka ayay eedeeyaan. nolol aan lahayn aragti fog, geesinimo iyo qoto dheeraan waa indhala'aan. maskaxda yar ee daciifka ah ee cajsiga badan ayaa doorbida waddo fudud, iyo waddada ay isleedahay way ugu gaaban tahay. bal weydii qof ciyaaryahan ah sida uu dareemo marka uu ka baxo tababarka. waxa uu kuu sheegayaa inuu ruuxbax dareemo. haddii uusan sidaasi dareeminna micnaheedu waa inuusan maalintaasi aad u tababaran. waxaan xasuustaa mar aan jiim dhiganayey, markii ugu horraysay ee aan jiim sameeyana ay ahayd in aan si wacan u seexan waayey habeenadii ugu horreeyey, xanuun zaa'id ah oo aan murqaha ka dareemayey awgiisa. waxaan weyddiiyey wiil ka mid ahaa kuwii igaga horreeyey jimicsiga, wuxuu igu yidhi waa inaad faraxdaa marka ay murquhu ku xanuunaan, sababtoo ah markaasi ayaad samaysay sidii la rabay, uuna dhismayaa muruqaaga. waa sidaas oo kale wax walba oo waxtar leh waxay u baahan yihiin in loo dadaalo, loo adkaysto, juhdi badanna la gelsho. xitaa aniguba marka aan diyaarinaya barnaamij sidan oo kale ah waxaan kala kulmaa daal fara badan si aan u soo saaro cod tayo leh iyo erayo saamayn leh. haddaba balanteennu waa dadaal badan iyo ficil joogto ah si aynu dhammaadka qisadeenna ugu raaxaysanno guushaan doonaynay in shaa allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.